waxyaalo badan oo nabadda mantiqada guud ahaan aan iskaashi ka yeelno arrimaha wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland diyaar baan Somaliland maanta waxaa ku furan doorashooyin ayay u diyaar garoobaysaa iyaguna mashaakil fara badan bay qabaan madaxweynaha cusub iyo dowladdiisu waayo culus oo badan baa hor yaalla oo ay tahay inay maanta iska xalilaan waxaan u arkayaa inaan priority u ahayn wada hadalka Soomaaliya waayo duruufo badan oo daakhiliya baa hay inaguna maanta waxaan leeyahay bulsho u xidhan doorashooyin naacawdii iyo dabayshii doorashadaaba ina haysa dowladda cusub ee Somaliland ka dhalata arrimaha ugu horeeya ee priority-ga u noqon doonta ayay ka mid tahay wada hadalkana waa diyaar waana ixtiraamayna waxaanse aan hoosta ka xariiqayaa mar labaad heshiiskii walaaladayo waxaanu leenahay ixtiraama heshiiskii labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Somaliland arrimaha iyada anigoo munaasabadan uga faa'iideysanaya waxaan jecelahay inaan fariinta dheer dhagahooda ku tuuro dowladda madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo maamulkiisa iyo ra'iisul wasaaraha intaba